waagii nabiga sallallahu calayhi wasalam nin ayaa u yimid waxa uuna yidhi rasuulkii ilaahayow xalay ma aanan seexanin oo xanuun daran ayaa i qabtay. waxaa i qaniinay dibqalooc ama hangaralo sida aad u taqaanaba. waxa uu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasalam haddii aad akhrisan lahayd dikrigan ama ducadan 3 mar wax balaayo ah maadan arkeen, xitaa haddii uu ku qaniino xanuunku maadan dareenteen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, soo dhawaada walaalayaal, kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. haddii aad nabad qabto, caafimaad qabto, dheh alxamdulilaah, ilaahayou noo ziyaadi nimcooyinkaadna siisay, intaan haysanana sii. intaa kadib walaalaha sharafta leh, sidii caadada inoo ahaydba aan isku dhiiragelino, aan isxasuusino saliga xabiibkeena maxamed. allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. intaa kadib waxaan rabaa walaalaha sharafta leh maanta inaan idinla wadaago dikri cajiib ah oo qiimo badan oo nabiga sallallahu calayhi wasalam ka sugnaaday. dikrigaas oo haddaad akhriso wax walba kaaga filnaanayo. dikrigan haddii aad akhriso subaxdii 3 jeer, subaxdaas balaayo iyo dhibaato ma arkaysid. sidoo kale galabkii ama markii aad galabaysatana haddii aad akhriso 3 mar wax dhibaato ah iyo wax balaayo ah toona ma arkaysid. rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayay ka sugnaatay. waa dikri cajiib ah, waa dikri fudud, waa dikri aad xifdin karto. sidoo kale haddii aad tahay hooyo ama aabo, waxaad u akhrinaysaa ilmahaaga yaryar. qaabkii aad ilmaha ugu akhrin lahaydne waan idinla wadaagi doonaa insha allah. haddii aad ilmahaaga u akhriso iyagana balaayo ma arki doonaan oo alle subxaanahu watacaala ayaa ku xifdin doona biidnillaah. naftaada u akhriso, ilmahaagana u akhri subaxdii 3 mar. sidoo kale xilliga galabkiina markii la gaaro 3 mar u akhri. habeenkaas iyo galabkaas dhibaato ma arki doontaan id biidnillaah. subaxdii markaad akhrisatana subaxaas dhibaato iyo balaayo ma arki doontid biidnillaah. haddaba dikrigan muxuu yahay? nabiga sallallahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u imaaday ninkaasna wuxuu ku yiri rasuulkii ilaahayow xalay ma aanan seexanin, xanuun aad iyo aad u daran ayaa i qabtay. waxa uu yiri waxaa i qaniinay geedkan la yiraahdo dibqalooca ama hangaralaha. nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yiri haddii aad akhrin lahayd dikrigan 3 mar wax balaayo ah maadan aragteen. dikrigana waa أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. subax dii haddaad 3 mar akhriso wax balaayo ah iyo wax dhibaato ah toona ma arki doontid oo xirsi ayuu kuu noqon doonaa. sidoo kale galabkii markii aad galabaysatana haddaad dhahdo أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, galabkaas iyo habeenkaas wax balaayo ah iyo wax dhibaato ah toona ma arki doonteed. haddaba haddii aad tahay hooyo ama aabo oo ay kuu joogaan ilmo yaryar, sidee loogu xirxirayaa maadaama adigii aad u akhrisatay أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 mar oo aad xirxirtay oo aad balaayadii ka gaashaamatay ilmahaaga yaryar iyo ubadkaaga yaryar ee aadka u yaryar ee aanan gaarin heer ay iyaga ducada akhristaan, maxaad u samaynaysaa? ilmahaaga waxaad u samaynaysaa haddii ay yihiin 2, haddii uu horta hal cunug yahay waxaad ugu akhrinaysaa uciiduka bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq. ilmahaaga haddii uu hal cunug yahay waxaad dhahaysaa uciiduka bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq. haddii ay ilmahaaga 2 iyo wax ka badan yihiinna waxaad leedahay uciidukumaa bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq. uciidukumaa bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq. oo waa jamc. markaas ilmahaaga hal cunug haddii uu yahay waxaad dhahaysaa uciiduka bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq. subaxdii 3 mar ayaad u akhrinaysaa, galabkiina 3 mar. xirsi xir ayay kuugu noqonaysaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kuugu xifdinayo. hadduu ilmahaaga hal cunug ka badan yahayna waxaad dhahaysaa
أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صباح دينا 3 مر ayaad u akhrinaysaa, habeenkiina 3 mar. runtii waa cajiib oo alle subxaanahu watacaala ayaa ilmahaaga kuugu xifdinayo oo isbedel aad iyo aad u weyn aad arki doontaa. waana arrin sugan oo ka sugan xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale waxaa jiri jiray ninkaasoo wuxuu ahaa dadka ayuu mar walba wuxuu u sheegi jiray ducadan inay akhristaan oo acuudu bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq, iyo faa'iidadeeda ayuu uga sheekeyn jiray. ninkaana wuxuu ahaa nin xanuunsan oo faalig ayaa ku dhacday, wuxuuna ka saameeyey lug iyo gacan. markaasaa maalin maalmaha ka mid waxaa la yidhi adiga ayaaba xanuunsan oo faalig ku hayaaye maxaad u akhrisan weysay adiga? wuxuu yidhi waan hilmaamay maalinkii uu igu dhacay faaligan, haddaan akhrisan lahaa iguma dhaceen. oo waa la hilmaamsiiyey, wax walba oo qadar ahna way dhacayaan. adoo waxaa samayn jir waxaa laga yaabaa maalinkaas inaad si un u ilowdo, waayo qadarta rabbi marnaba qofka ma seegayo. laakiin intii karaan ah iyo intii dadaal ah waa in la xirsi xirto oo loo xirsi xiro ilmaha iyo ubadka yaryar ee aad dhashay. haddaba ducadan waa duco cajiib ah, waa duco fudud, waa dikri fudud aadna ilaahi subxaanahu watacaala kaga magangelaysa dhammaan shar oo idil ayaad alle subxaanahu watacaala kaga magangelaysaa. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. subaxdii markii aad soo kacdo 3 mar akhriso ilaa galabtii la gaaro, wax balaayo ah iyo wax dhibaato ah ma arki doontid biidnillaah. sidoo kale galabkii markii la gaarane أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 mar oo akhri ubadkaaga iyo ilmahaaga adina akhriso, wax balaayo ah iyo wax dhibaato ah ma arki doontid biidnillaah. waa dikri fudud, waa dikri kuu ilaalin doono si cajiib ah, ubadkaada iyo ilmahaagana kuu ilaalin doono. ku dadaalno walaalaha sharafta leh, insha Allah walaalaha kalena gaarsiiya si ay khayrka uga faa'iideystaan. waayo qofkii khayr qof tusiyo wuxuu la mid yahay sidii asagoo sameeyay oo kale. marka adiga khayrka faafi, qof walbo ka faa'iideysto iyo qof walbo ku amal falaba, adigana ajarkaada ayaad leedahay, qofkaasna ajarkiisa lagama nusqaaminayo biidnillaah. waa mahadsantiin walaalaha sharafta leh, muuqaalka like saara si uu walaalo badan u gaaro. haddii aad horey noola joogto waad mahadsan tahay, haddaad nagu cusub tahayna kusoo dhawow channelkeena, qaybta hoose commentigana ku salliya xabiibkeena Maxamed. allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin. waa mahadsantiin walaalaha sharafta leh, intaan ku kulmayna muuqaal kale sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.